soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa qayb ka ah koox hubaysan oo xildhibaan ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo ciidanka amniga oo howlgalo culus ka sameeyay halka uu ka dhacay dilka. kulan xasaasiya oo ku saabsan amniga filla Soomaaliya oo dhexmaray beesha Hawiye iyo ciidanka AMISOM xilli digniin adag loo jeediyay ciidankaas. urur goboleedka IGAD oo ka jawaabay baaqii madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo u diray Midowga Afrika ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya oo diyaarisay ciidamo gaar ah oo la wareegay amniga caasimadda dalka xilli xiisad culus ay u dhaxayso musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Farmaajo. iyo qasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo sii korortay. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imika aadsan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran. waa Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 22 bisha Abriil sanada 2021. haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo soo booqatay channelkeena ha ilaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku shaargaraynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara. aynu ku bilownay koox hubaysanaya xildhibaan ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. wararkaanu ka helayna degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa waxay sheegayaan koox ku hubaysan bastoolada inay dileen xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Allah u naxariistay xildhibaankan ayaa lagu magacaabay jiray Cabdiraxmaan Kamaal waxaana lagu toogtay xaafadda siliga Ameerikaanka ee degmada Wadajir xilli halkaas uu ku sugnaa isagoo xildhibaanka isla goobta ku geeriyooday. ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tagay goobta uu falku ka dhacay isla markaana waxay halkaa ka qaadeen meydka xildhibaan Cabdiraxmaan Kamaal waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu ku geeriyoodo xarunta caafimaadka oo dhaawac soo gaaray daraadeed halka loo geeyay. raggii ka dambeeyay falka dilka ayaa goobta si degdeg uga baxsaday. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ciidanka dowladda Soomaaliya ay baaritaano baaxad leh ka sameeyeen halka uu dilku ka dhacay inkastoo wali wax natiijo aysan ka soo bixin baaritaankii ciidanka ay sameeyeen. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa hore uga dhacay dilal kala duwan oo loo geystay askar ka tirsan dowladda, mas'uuliyiin iyo sidoo kale dad shacab waxaana inta badan falalka ka dhaca magaalada Muqdisho mas'uuliyadooda sheegta Al-Shabaab. inta badan waxaa la sheegaa mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabelle haddii ay ahaan lahaayeen wasiirada ama xildhibaanada in ay degan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxaana kol horeeta soo baxay warar sheegaya in xildhibaano iyo saraakiil badan oo dowlad goboleedka Hirshabelle inay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sidaan oo kale waxay sameeyeen baaritaano culus kuwaas oo ku aadan dilal ka dhaca magaalada Muqdisho iyo qaraxyo qorshaysnaa. mana jirin wax natiijo oo ka soo baxay dilalkaas la geystay baaritaankii ay ku sameeyeen ciidanka dowladda Soomaaliya ama qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. dilka xildhibaankan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaas oo baaritaanada ay sameeyaan ciidanka dowladda Soomaaliya aan wax natiijo ka keenin. Muqdisho ayaa dhawaanahan waxay ahayd mid martigelinaysay qaraxyo iyo weeraro qorshaysan oo lagu qaaday mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo dhawaanahan aad ugu soo badanayay bartamaha caasimadda Muqdisho. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaana la sheegaa inay howlgallo joogto ah wadaan kuwaas oo ah kuwa ay kaga hortagayaan falal amni darro oo ka dhaca Muqdisho. IGAD ayaa ka jawaabtay baaqii madaxweyne Farmaajo oo u diray Midowga Afrika ee doorashada Soomaaliya. urur goboleedka IGAD ayaa war-saxaafadeed waxay ka soo saareen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyagoo ka hadlay doorasho la'aanta ka jirta dalka tan iyo markii muddo xileedkiisu uu dhamaaday madaxweynaha dowladda Soomaaliya 8 Febraayo 2021. IGAD ayaa ugu baaqday daneeyayaasha siyaasadda ee Soomaaliya in ay ku laabtaan wada xaajoodyada waxayna ay taageereen hindisaha loo soo jeediyay in ay qaataan. IGAD ayaa soo dhaweysay in Midowga Afrika uu fududeeyo geedi socodka horseedi kara wada xaajood furan oo doorasho lagu gali karo iyadoo ku baaqday in laga dheeraado wax walba oo in la guuldareysto keeni kara. waxaa urur goboleedka IGAD ay xuseen in ay muhiimad gaar ah leedahay in Soomaaliya dhexdeeda ay heshiiso isla markaana loo tanaasulo danta dalka iyo dadkaba. Farmaajo ayaa dhawaan booqday dalka DRC Congo isaga oo ka dalbaday in ay dhexdhexaadiyaan isaga iyo saamilayda siyaasadda si doorasho loogu heshiis yahay dalka ay kaga dhacdo. madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo markii uu sameeyay muddo kororsiga waxaa soo baxay dadyow kala duwan oo ka soo horjeeda muddo kororsiga uu sameeyay waxaana qayb ka ahaa dowlado waaweyn oo caalamka kuwaas oo si adag kaga hor yimid muddo kororsiga uu sameeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya. waxaana soo baxay warar kala duwan oo ku aadan sida ay ku dhaqan geli karto muddo kororsiga uu sameeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya. dhawaantaan ay ahayd markii ay soo baxeen hadalla sheegay in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka laabtay go'aankiisii ahaa in doorasho dalka aysan ka dhicin isla markaana 2 sano uu ku darsaday maadaama baarlamaanka ay go'aankaas meel mariyeen. laakiin warar kale ayaa durba soo baxay oo sheegaya in madaxweynaha wali uu ku dhagan yahay go'aankiisii hore oo ah in doorasho dalka aysan ka dhicin 2 sano ay noqonayso muddada uu ku darsaday. xilligaas wixii ka dambeeyana shacabku ay aadi doonaan doorasho qof iyo cod ah si dalka looga hirgeliyo.
laakiin cadaadiska uu la kulmayo madaxweynaha ayaa maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu noqonayaa mid sii siyaadaya. urur goboleedka IGAD ayaana xilligan waxay taageerayaan in dib loogu laabto wadahadaladii u dhexeeyay dowlad goboleedka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaan la rajaynayaa mar kaleeto in Muqdisho ay iskugu imaan doonaan madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya si loo ambaqaado wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac ee ku aadanaa heshiiskii 17 September laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya. xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa kulan ku saabsan amniga filla Soomaaliya oo beesha hawiye ay la yeelatay AMISOM. xogahan helnaya waxay xaqiijinayaan in siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda beesha hawiye iyo AMISOM ay shir ka yeesheen xasaasiya xaaladda siyaasadeed ee dalka ee xilligan uu marayo. xildhibaanadan ayaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday waxay ku eedeeyeen in uu filla Soomaaliya ka dhigtay bar ciidan oo laga soo abaabulo weerarada lagu qaadayo siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan Muqdisho. xildhibaanada ayaa AMISOM ku wargeliyay in ay iska difaacaan weerarada farmaajo isla markaana filla Soomaaliya ay u aqoonsadaan xero ciidan in ay tahay. waxay AMISOM ka dalbadeen in filla Soomaaliya ay ka baxaan ama farmaajo uu joojiyo abaabulka weerarada laga soo qorsheynayo filla Soomaaliya ama guud ahaanba AMISOM ay ku dhinac noqdaan madaxweynaha waqtigiisu idlaada ee farmaajo. waxay kaloo AMISOM uga digeen inaysan gacmaha ka laaban doonin garoonka diyaaradaha aadan cadde haddii la isku dayo in laga soo dejiyo maleeshiya beeleed uu farmaajo damacsan yahay in uu ka keeno gobolka Gada iyo Cabud Waaq kuwaas oo la doonayo in Muqdisho ay yimaadaan kana qayb qaataan dagaalka uu qaadayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya. waxaa la sheegay kulankaas inuu ahaa mid saacado badan qaatay isla markaana AMISOM ay garwaaqsatay in ay ka hor wareegto madaxweynaha dowladda Soomaaliya haddii uu qaadan waayo taladooda oo ah in uu joojiyo weerarada uu ka qaadayo madaxtooyada dowladda Soomaaliya. marka taa laga soo tago sidoo kale waxaa jirta muran xoogan oo ka taagan in garoonka aadan cadde laga soo dejinayo maleeshiyaad laga keenayo gobolka Gada iyo sidoo kale Cabud Waaq oo ah meelaha uu ka soo jeedo madaxweynaha dowladda Soomaaliya kuwaas oo la doonayo in habeeleed ahaan Muqdisho ay uga dagaalgalaan. waxaa la sheegay maleeshiyaadka ka imaanaya gobolka Gada in ay yihiin kuwa muddo dheer dhibaateynaya dadka ku nool gobolkaas uu wadan jiray wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan kaas oo ku sugan Muqdisho isla markaana madaxtooye ka dhigtay dhufays ciidan oo uu ka dagaalamo. farmaajo ayaa dadku u adeegsan rabo una adeegsanaya dagaalada uu doonayay in Muqdisho uu ka bilaabo. waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka lugta Maxamed Tahliil Biixi kaas oo ah nin ay isku heb yihiin isla markaana ah sargaal caan ku ah dagaalka iyo sidoo kale dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed iyadoo lagu xasuusto sagaashamaadkii dagaaladii Muqdisho uu ka galay iyo sidoo kale kumanaan shacab ah in uu ku laayay qaybo ka mid ah gobolada dalka. waxaa soo raacay wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland oo isna qayb ka ah dadka uu doonayay farmaajo inay u dagaalgalaan. waxaana la xasuustaa in uu xasuuq ba'an ka geystay gobolka Gada intii ay saayeen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaa diyaarinaysa ciidamo gaar ah kuwaas oo la wareega amniga caasimadda dalka. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan waxay qorsheynaysaa ciidamo badan oo isugu jira booliis, military iyo nabad sugid oo la wareega amniga caasimadda dalka kaas oo dhowaanahan qalqal xoogan uu ka jiray. kulamo ay iskugu imaadeen madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu wehlinayay ra'iisul wasaaraha magacyaalka ah ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya. kulankan oo ahaa mid inaba aan caadi ahayn ayaa diiradda waxaa lagu saarayay sidii ciidamo gaar ah dowladda Soomaaliya ay u diyaarin lahayd kuwaas oo gebi ahaanba la wareega amniga caasimadda dalka. Faad Yaasiin ayaa soo jeediyay in dowladda Soomaaliya ay diyaarisay ciidamo isugu jira booliis, military iyo nabad sugid kuwaas oo guud ahaanba amniga caasimadda gacanta ku dhiga isla markaana wax walba oo dowladda caqabad ku ah ka hor wareejin kara. farmaajo ayaa go'aankaas waxa uu noqday mid uu u riyaaqay waxaana ku raacay ra'iisul wasaaraha magacyaalka ka ah Soomaaliya xilligan ee Maxamed Xuseen Rooble kaas oo qaatay go'aanada uu soo saaro madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inkastoo Maxamed Xuseen Rooble uusan lahayn go'aan uu wax ku meel marin kara xilligan maadaama ballankii hore lagu keenaba uu ahaaba nin qaadanaya go'aanada uu soo saaray madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday magacuna uu ka yahay ra'iisul wasaare. ciidamadan ayaa waxaa la qorsheynayaa in weerar culus ay ku qaadaan madaxweynayaashii hore ee dalka iyo sidoo kale xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka. shakhsiyaadka weerarka loo qorsheynaya ayaa waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii ka horreeyey Farmaajo, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweynihii kasii horreeyey Xasan Sheekh Maxamuud, xasan cali kheyre oo ah ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee la soo shaqeeyey Farmaajo iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waxaa soo raacay oo sidoo kale weerarkan loo qorsheynayaa in lagu soo qabto ama lagu qaarijiyo senator Muuse Suudiye Lixow kaas oo ciidamo badan ku haysto halka loo yaqaan mirnaayada. sidoo kale waxaa ciilka ugu weyn uu Farmaajo u qabaa oo tallaabada ugu horeysa in laga qaado la doonayaa Saadiq John oo ah taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir oo si lama filaan ah kaga goostay dowladda Soomaaliya dhinaceedana kaga baxay. waxaa soo raacay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la sheegay inuu ku jiro xildhibaan Mahad Salaad iyo xildhibaano kale oo mucaarad ah. qorshahan ayaa aad looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana jira saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ciidankeeda oo loo yeero oo ku sugan madaxtooyada. Maxamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka lugta oo qaraabo dhow ay yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in abaabulka ugu weyn loo dhiibay gacantana loo geliyay.
biixi ayaa ka mid ah saraakiishii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka qayb qaatay isagoo xilligaas u dagaalayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre dad badan oo boqolaal ruux kor u dhaafaya ayaa Maxamed Taaliil Biixi waxa uu xilligaas u laayay hab qabiil ahaana isagoo xilligaas beeshi uu ka soo jeedo dagaal ay kula jirtay Soomaalida inteeda kale waxaana xilligan uu yahay mid qaba ciilkii waqtigaas oo la sheegay in dhaawac culus uu ka soo gaaray loona qaaday dalka dibadiisa biixi ayaa mar kale wax uu wajihi doonaa dagaal kale uu la gali doono shacabka Soomaaliyeed oo ka soo horjeeda nidaamka cunsuriga oo ay wadaan isaga iyo adeerkiis Farmaajo ugu dambeynna waxaa sii kordhayay qasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya safaaradii hore ee Jarmalka oo ku taala degmada Boondheere ayaa waxaa ku dhacay tiro hoobiyaal kuwaas oo sababay qasaare isugu jira mid dhimasho iyo mid dhaawac Fadxi Caddo Cabdi iyo Faa'isa Caddo Cabdi oo ahaa laba dhalinyaro walaalo ah ayaa waxay ku geeriyoodeen hoobiyaal ku dhacay gurigooda xilli ay ku sugnaayeen dugsi quraan goobtaas ka agdhawaa ayaa isagana madfac ku dhacay waxaa ku dhaawacmay macallinkii dugsiga iyo qaar ka mid ah carruurtii dhiganaysay sidoo kale wiil dhalinyaro oo lagu magacaabi jiray Cabdicasiis Maxamed Xasan ayaa sariirtiisa isagoo jiifo hoobiye uu ku dul habsaday halkaasna ku geeriyooday marxuumka dhinto oo 19 jir ahaa ayaa hadda waxa uu soo dhameeyay jaamacad ku taala dalka Turkiga sida ehelkiisa ay noo xaqiijiyeen al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas iyagoo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay ku beegsadeen kahor sheegashada al-shabaab waxaa soo baxay warar hoose oo ku aadanaa in midowga musharaxiinta mucaaradka ay ka dambeeyaan hoobiyaashaas lagu soo garaacay agagaarka fila Soomaaliya laakiin waa isbedeshay xaaladda kadib markii al-shabaab ay soo qoreen in iyaga ay ka dambeeyeen dawladda Soomaaliya ayaana shaki weyn waxay gelinaysay markii hore in midowga musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan u guuray halka lagu magacaabo Cabdicasiis inay ka dambeeyeen hoobiyaashaas isla markaana ay ku carqaladaynayeen nabadda ka jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka intaasi daawadayaal waxaa ku dhan warkii waad ku maasantihiin la socodkii la saanqaadka warkeena fadlan taageerayaashayda سبسكراب ده سياد موقالو إذن حيسا قليو قرقروح بدنو شرشرف بدون وناكسنو رين وهلا أوغا فيرسطان هالكان مهد سندين